بسم الله الرحمن الرحيم وتساليهني أفراد iyo Ustaad Cabdicasiis tusaalahan waxaan ku baran doonaa insha Allahu tacaala example 4 waxaan ku baran doonaa tusaale ciwaankiisu yahay write HTML code waxaad qortaa HTML code to show si aad u muujisid oo aad u soo bandhigtid different heading tags ciwaanada kala duwan ee HTML-ka marka la joogo la isticmaalo casharkan waxaan ku baran doonaa ama tusaalahan waxaan ku baran doonaa sida loo sameeyo ciwaanada walow aynu soo adeegsanay wax ka mid ah oo aan H1 soo adeegsanay laakiinse haddeerto waxaynu adeegsan doonaa 6 level ee kala duwan ee ciwaanada HTML-ku ay u qaybsamaan H1 ilaa iyo H6 waa 6 level ama 6 darajo oo loo qaybiyo ciwaanada lagu dhex isticmaalo HTML-ka waayo ama web page-ka marka la abuurayo ciwaanada haddaad u baahatid 6 level ayaad midkood isticmaalaysaa good waayahay waxaynu tegaynaa marka koowaad ee sublime text-geena soo furanaa waayahay saan markuu igu soo kaco file baan tegayaa save baan leeyahay desktop kan dhiganayaa kabacdi waxaan ku qorayaa tusaalahan oo kale lesson 4.html maadaama tusaale afraad yahay kabacdi waxaan leeyahay save then waxaan qorayaa asaasiyaadka web page-ka intan hore baynu soo dhiganay title-ka waxaan ka dhiganayaa lesson 4 intaan waa iska saarayaa labada meter uma baahni waqti xaadirkan body tag aan imaanaya mar kasta oo aad content soo gelinaysid web page-kaaga waxaan kugu yiri waxaa laga soo geliyaa body tag meel kale waxaa ku qoray waayo body tag aan qorayaa waxaan isticmaalayaa tag la oran jiray center tagan macnihiisa iyo waxa uu qabanaya hore baan uga soo hadalnay kabacdi halkan waxaan ku qori doonaa 6dii ciwaan aan soo sheegno ciwaanka koowaad waxaa la isticmaalaa H1 waxaan ku qorayaa first heading waxaad doontaa ku qoran kartaa adigu laakiin anigu waxaan ka dhiganayaa first heading si aad u ogaado si uu kala horeeyaan waayahay first heading markaan qoro kuwa kalena waan raacinayaa kabacdi waxaa leedahay H2 then waxaan leeyahay second heading then waxaan leeyahay H3 kabacdi waxaan leeyahay third heading kabacdi waxaan leeyahay fourth heading kabacdi waxaan leeyahay H5 waxaan leeyahay fifth heading kabacdi waxaan leeyahay H6 kan waxaan leeyahay waa sixth heading way 6dii ciwaan ayaan qoray 6dii ciwaan way inta markaan qoro file baan tagayaa save baan leeyahay marka waa 6dii darajo ee ciwaanadu u qaybsamay ama 6dii level click baan leeyahay open browse baan leeyahay marka waa kuwan marka fiiri first heading maxaa laga dhigay ciwaan far waaweyn ku qoran oo madow baa laga dhigay maxaa keenaya inuu waaweynaado ciwaankan inuu waaweynaado oo far waaweyn oo madow lagu qoro waxaa keenaya tagan H1 ee hareeraha laga mariyay ciwaankan labaad in uu kan ka yaraado laakiin kuwa kale uu ka weynaado waxaa keenaya H2 tag hareeraha laga mariyay sida uu kan ugu dambeeya inuu ugu yaraado ee lixaad maxaa keenaya sababtoo ah H6 ayaa hareeraha laga mariyay 6 level ee ciwaanada HTML ku qaybsamaana waa sidaas hadba ka aad rabtid ayaa isticmaalaysaa hadda H1 rabtid H6 H4 H5 hadba H ciwaanka aad u baahan tahay inaad qortid levelkiisa ayaad isticmaalaysaa casharkan intaas ku eegaya aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.